كل wanaagsan daawadayaal waa janalka kulanka wararka falanqaynteena fiidnimo ee xogaha qarsoon oo garahan oo kala aad kala socotaan janalkan waxaan nooca ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay qorshaha ay damacsan yihiin madaxda dawlad goboleedyada ee ku soo ururaya magaalada Muqdisho xilli talaabadii ugu horeysay shalay ay qaadeen golayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya 10 ay ka barteen madaxda oo soo dadejisay in isla maanta ay yimaadaan magaalada Muqdisho waxa Muqdisho ku sugan ilaa iyo 4 madaxweyne dawlad goboleed oo kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed asbaabaha ay u yimaadeen ayaan idin la wadaagi doonaa iyo qorshayaasha ay damacsan yihiin madaxweyne Axmed Madoobe ma laga yaabaa inuu yimaado magaalada Muqdisho maxaa ku qasbaya madaxda dawlad goboleedyada intooda aan ahayn murashaxiinta inay soo gaaraan magaalada maxay tahay ujeedada ay leeyihiin wararayaan idinkaga helnaa inta ka horeysata waxaan idinka dalbanaynaa daawade haddii aad ku cusub tahay channelka kulanka wararka fadlan subscribe sar haddii aad ka heshid wararka iyo warbixinada halkaani aan soo gelinaa like garay sidoo kale aragtidaada noogu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid hagaagan ku bilownay madaxda dawlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa saacadii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo madaxweynaha Hirshabelle uu ahaa kan ugu horeeyay ay shalay yimid magaalada Muqdisho kadib markii talaabooyin waaweyn ay qaadeen labadii fadhi ee ugu dambeeyay ee golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si gaar ah fadhigii ugu dambeeyay oo sida wadajirka ay u yeesheen labada gole fadhigaas waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan iyadoo marka qaarna la sheegayay in lagu sigtay in gacanka hadal uu dhex maro qaar kamid ah xubnaha fadhiga ku sugnaa arintaasi waxa ay banaanka keentay awoodda madaxda qaar ee isbidayay inay gacanta ugu jiraan xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho inkastoo Cali Guudlaawe iyo kan Galmudug lagu tirinayo inaanay faraha waxba ugu jirin oo xildhibaanada ay soo saareen dhamaantood ay yihiin kuwa si iskood u madax bannaan oo danahooda iyagu raacanaya laakiin labada madaxweyne ee Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa la sheegayaa inay yihiin madaxda gacanta ku haysta inta badan xubnaha ay soo saareen inkastoo ay jiraan qaar kamid ah xubnaha ay soo saareen oo farahooda ka baxay Saciid Cabdullaahi Dani isagu waa murashax madaxweyne halka lafta gareen oo isaguna u yahay campaigner madaxweynaha waqtigiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo docda kale waxaa jira damac reer Koonfur Galbeed ay daneynayaan oo ah in markaan ay ka soo muuqdaan labada kursi ee dalka ugu sareysa waa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xog la helayo ayaa sheegaysa in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ahna musharax madaxweyne uu isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo galay Puntland sida heerowareedyo lagu kalsoon yahay oo xildhibaanada ka tirsan ay noo sheegeen Dani oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in xildhibaanada uu kala hadli doono doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo habka ay wajahayaan rabitaanka koowaad ee Dani ayaa ah in xildhibaanada ay codkiisa siiyaan isaga balse xogta la helayo ayaa sheegaysa in sidoo kale uu kala hadli doono musharax ay u codeyn doonaan haddii uu ku haro wareegga koowaad ama kan labaad Dani ayaa soo saaray ilaa 40 xildhibaan wuxuuna sidoo kale isku haleynayaa xildhibaanada ka soo galay Jubbaland ee uu soo saaray saaxiibkiisa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe taas oo siinaysa taageerada ku dhawaad 60 xildhibaan hase yeeshee tiradaas kadib ayaanay caddeyn sida Dani uu xildhibaano kale ku heli doono iyada oo sanadkan la rumaysan yahay in ugu yaraan 5 musharax ay heli karaan ku dhawaad 50 cod iyo ka badan wareegga koowaad ee doorashada macda musharaxa uu Dani taageeri doono haddii uu haro balse waxa la hubaa in uusan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codka siin doonin maadaama hore uu sheegay in sababta uu isu soo sharaxay ay tahay in kursiga uu dhaafiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hore waxa uu jiray in Dani uu rumaysnaa in uu taageerayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay aad isugu dhawaayeen balse hadda xiriirkoodu aanu sidii hore ahayn kadib markii uu qaatay go'aan uu isku soo sharaxay kulanka Dani uu isugu yeeray xildhibaanada ayaa imaanaya iyadoo ay jirto inuusan wari hayn dhaqaale ku filan oo doorashada uu ku gari karo kadib markii ay dawladda Imaaraadka Carabta oo isku haleynayay ay u sheegtay inaysan taageeri karin sida xogta lagu helayo dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Laftagreen ayaa si degdeg ah isna Muqdisho ku soo gaaray kadib markii uu 10 ka bartay hanaanka ay xildhibaanadiisa oo loo arkay inay yihiin kooxda isku xiran ee aqlabiyadda baarlamaanka kaliya haysata in ay kala codeeyeen iyadoo la arkay qaar u degdegaya in doorashada la soo dedejiyo jadwalkana sida mucaaradka ay rabaan ay u meel mariyaan
senatarada iyo xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo baxay maamulka koonfur galbeed ayaa u muuqda inay qaadeen jid ka duwan ka u jeexay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen isaga oo markii ay ka soo tagayeen kula dardaarmay inay raacaan wadada kudlada nisaa ama dhinacyada ku dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin shalay waxa la arkayay in xildhibaanada ay xoogooda taageereen in la dedejiyo doorashada guddoonka golaha shacabka taas oo aanay filla Soomaaliya doonin Laftagareen ayaa lagu wadaa in uu la kulmo xubnaha inkastoo hadda talab badan oo uu ku cadaadin karo gacantiisa aanay ku jireen oo ay hadda yihiin xildhibaan qaran oo ka soo baxay gacantiisa magaalada la joogana aan ahayn magaalada Baydhabo oo uu diyaaradda u diidi karay laakiin waxa loo badinayaa in xildhibaanada qaar ee uu u arko in uu abaal gashaday in ay maqli doonaan inkastoo majority-ga ama tirada ugu badan xildhibaanada qaar ay hadda kala shukaansadeen xubnaha murashaxiinta muqdisho ku sugan sida Xasan Cali Kheyre Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud tiyo u dheertahay in dani oo muqdisho soo gaaray lagana urinayo in lacaga shisheeye uu boorsooyinka ku wato turba garoonka loo buuxdaafiyay xubno badan oo koonfur galbeed ka soo jeedana ay daneynayaan in dhaqaalahaasi ay wax ku yeeshaan gudahaan waxa caaw intaas ku soo gabagabeynaya daawade xogta la xiriirta madaxda dowlad goboleedyada ee muqdisho soo gaaray ujeedka ka dambeeysa iyo halka geediga doorashada uu u dhaqaaqi doono daawada haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan nagu soo biro subscribe saar haddii aad tahay mid hore noola joogana nala sii joog oo sii share garay xogahaasi macluumaad dheeraad ah si aan idinla wadaagno inta doorashada iyo xilligan xasaasiga lagu guda jiro mahadsanidin